wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta ku hadlay xafiiskiisa ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay haatan Somaliland ku sugan tahay iyo wararka sheegaya in ganacsatada Somaliland ay kordhiyeen maciishada iyagoo ka faa'iideysanaya xanuunka coronavirus ee dunida sida weyn ugu fidaya. wasiirku waxa uu sheegay haddii ay ganacsatadu ku kacaan tallaabadaasi iyo isla markaasina ay qaaliyeeyaan maciishada in tallaabo sharciya laga qaadi doono ganacsatada Somaliland. maanta iyagoo aad u mahadsan waxa ay sheegeen macalrugta ganacsigu inaanu jirin raashin la'aan. waa laba inaan raashinka qiimo koror ku kordhayna aanu jirin. waa saddex ciddii raashinka qaali garaysa in ay ganacsatada iyo rugta ganacsigu dowladda kala shaqaynayaan sidii dadka tallaabo looga qaadi lahaa. maanta oo kale waa qaran hawl culus ku jira oo aynu adduunyada la wadaagno. marka ugu horeysa qofka ummadda raashinka rag waxaa la sheegayaa inay raashinkii urursanayaan oo istoodha gaara dhiganayaan. waxaa la leeyahay qaar raashinkii way kicinayaan. jaraa'idka maanta qaar baa qoray waanu haynaa, waa la keeni doonaa, meeshii xogta ka helayna waa la keeni doonaa, oo ay sheegayaan oo ay leeyihiin raashinkii gadbada bariiska ah oo cagacagaynaysa $50 oo cagacagaynaysa $50. wararka qaar waa khalkhalin dalka iyo ummadda khalkhal lagu ridayo. wararka qaarna waa niman dhiig miirata ah oo doonayo ummaddan xanuunkan ka feejignaanaysa in maxaanku dhahdaye ay dhiig miirasho ku noqdaan. barnaamijka lagu shaqaynayaa iminka ilaa iyo heer qaran laga bilaabo madaxweynaha, laga bilaabo ilaa iyo mas-uuliyadda heer tuulaha, degmada, gobolka, heer qaran waxaa lagu shaqaynayaa tilmaamaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka oo iyaga dhaqaatiirtii halkaasay inoo joogtaa, farsamo yaqaanadii halkaasay inoo joogaan. xanuunku waa xanuun halis ah. waxaa la adeegsanayaa waa awood caafimaad iyo cilmi caafimaad ayaa lagu shaqaynaya. marka waxaan faraynaa maanta dhammaan guddiyada nabadgelyada gobolada, ciidanka biliiska, ciidamada kale ee nabadgelyada ee qaranka, guddoomiyeyaasha meeyarada, xildhibaanada degmooyinka, meeyarada degmooyinka aan xildhibaanada laga dooran, inay si joogto ah ula socdaan ganacsatada, dukaamada, bakhaarleyda, qiimaha raashinka lagu iibinayo. cid allaale iyo ciddii maxaanku dhahdaye lagu arko in ay sicirkii kicinayaan in tallaabo laga qaado, in sharciga la hortaago, in ganacsigooda la xidho. bulshada reer Somaliland waxaan ku wargelinaynaa had iyo jeer waxyaalo fara badan bay bulshadu iyagu mas-uul ka yihiin. waxay mas-uul ka yihiin ninkii gadbada bariiska daqiiqada ah maxaanku dhahdaye bakhaarada waaweyn $15, $20 ama qiimo kastoo joogto kasoo siistay inuu markuu bakhaarka keeno ama dukaanka keeno uu laba jibaar ku iibiyo. ilaahayna doorkan wuu ku cunaqabataynaya. ummadana maxaanku dhahdaye dembiga ay ku galeen waa laga goynaya. dowladuna way raacaysaa oo way tallaabay ka qaadaysaa, sharciga la horgeynaya, lama ogolaanayo. Aydaruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, Hargeysa.